maanta maalin weyn inoo tahay waxaan furnay maanta barti caafimaadka booliiska ee magaalada Baydhabo ay noogu deeqday booliiska Amisom runtii waxaan filaynaa inay noo noqoto arrin muhiimad weyn leh caafimaadka lagu daryeelo ciidanka kaliya ma ahan muxuu ahaa isheeg ummadda Soomaaliyeed shacabka xataa qofkii dhibaato qaba inuu ka soo qayb galo lagu daaweeyo lagu xanaaneeyo saas baan codsanayna aan rajaynayna haddii Ilaahay yiraahdo. Today is one of another days that we have come here specifically to open this clinic that you're seeing here. This is one of the projects of Amisom and a project part of the stabilization program to help stabilize recovered areas. As Amisom, we don't only train the police, but we also look at the health of the police. It's very, very important. It's the reason why we renovated this police clinic. It was once a police clinic. بعدنا وزير أمنية كبعدي وحواي